السلام عليكم asxaabta ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta waxaan halkan idinku soo gudbinayaa muuqaalo been abuur ah kuwaas oo laga sameeyay dad madax ah iyo waxyaabo kale aan macquul ahayn marka aad aragto isla markaasina aad rumaysanayso madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi oo si toos ah u dilaya mid ka mid ah wasiiradiisii oo diiday amarkiisa xilli saxaafadana ay goobjoog ka ahayd haddaba aan u imaano xaqiiqada muuqaalkaani waxaa shaki la'aan ah in muuqaalkaani uu ahaa labada madaxweyne ee Kuuriyada Waqooyi iyo Kuuriyada Koonfureed xilli ay ku kulmeen xuduudda labada dal waxaana arkaysaa iyaga oo gacmaha isheesta ka gudbay darbi yar haddana ku soo noqday si nabad ah muuqaalkaasi wuxuu ahaa mid been abuur ah madaxweynaha Mareykanka iyo madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi xilli TV laga wareysanayay dhaxmartay dood aad u kulul haddaba waxaa hubaal ah in labadaas nin ay weligooda ku kulmin in hal TV laga wareysta iska daaya xitaa inay TV-yada si toos ah loogu wareysto weligoodana wareysi noocaas ah ma bixinin So we try out this new guy. So let's see how he goes. I love this guy. See, I fire people. You kill people. So much better. So much better. Exactly. Exactly. I want to be this. And who does your hair or who makes your wig? Well, it's my hair and I do it myself. nin oday ah oo ku nool waddanka Australia ayaa sheegay inay isku oolin luqantiisa iyo garbihiisa ninkan odayga ah ayaa dadka saas ugu qosliya waxaana rumaystay dad badan laakiin ninkan ayaa isticmaalo farsamo u gaar ah haddaba farsamadan ayaa ah mid aad u adag in la fahmo ninkan ayaa isticmaalo 3 xulood mid ka mid ah waxa uu geliyaa kuleetiga jaakada halka labada kalena uu geliyo jeebka sulwaarkiisa taasi ayaa keentay in kuleetiga jaakadiisa kor u qaadmato loona maleeyo qof luquntiisa iyo garbihiisa aan isku yaalin madaxweynaha Mareykanka Trump oo ka sheekaynayo sawirka Kacbada muuqaalkan ayaa si weyn ugu baahay baraha bulshada waxaan arkaysaa Trump oo sharaxaya sawirka Kacbada haddaba aan u imaano xaqiiqada muuqaalkan ayaa ahaa xilli uu Trump doonayay in wax laga bedelo dhismaha The Capitol waxa uu sharxayo Trump ma ahan sawirka Kacbada waa dhismaha The Capitol waana dhismaha labaad ee madaxtooyada u ah Mareykanka nin u dhashay waddanka Pakistan ayaa sidoo kale sheegay inuu hayo naag jini ah haddaba waxa uu ninkani sheegay ayaa dad badan u qaatay run iyagoo aan ogaan xaqiiqada muuqaalka ku dhisan iyo waxa ka soo muuqday muuqaalkaasi waxaa hubaal ah in waxa ka soo muuqday muuqaalka yahay daanyar taasoo loo geliyay dhar macmal ah wejigana loo mariyay bur marka aad si fiican u fiiriso waxaad fahmaysaa inay tahay daanyeer fadlan haddii aad ka heshay muuqaalkan ha ka ilaabin inaad dahdo like and subscribe aad ayaa u mahadsantihiin siina share garay السلام عليكم مقعي وعد وأخصلي فضلا هداك عشبتاي ماشو سبسكرايب لايك كومنت شير